anagu waxaanu nahay commission waxaana lagu idhaahaa commissionkan waa commission dhowr waaxood ka kooban oo sida hay'adaha standardka sameeya metrology-ga sameeya taya ilaalinta ama taya baadhista sameeya shay baadhista sameeya sidoo kale shahaado bixinta sameeya marka waa hay'ad aad oran karto culeyskeedu wuxuu noqon karaa dhowr wasaaradood la culeys noqon karaa waayo waxa laga yaabaa dalkeena Soomaaliland ama Jamhuuriyadda Soomaaliland thousands of products inay soo galaan lana rabo inay kor ka ilaaliso oo mararka qaar noqon karta inay ciidamo badan yeelataba oo baadhayaala haddii wixii shaki yimaadana samayn karta waxa loo yaqaan shay baadhisba waxa jira wax la yiraahdo baadhis cilmiga marka laga hadlayo tayada iyo wax la yiraahdo shay baadhis mar dushaad ka eegaysaa marna hoos baad u degaysaa parameter wise baad wixii u eegaysaa oo testing baad ka qaadaysaa institution-kan gudoomiyaha markii hore ka hadlay 2010kii ayaa dekreeta madaxweyne lagu magacaabay laakiin xeerkeeda oo ah xeer 8/2014 ayaa la meel mariyay waana hay'ad madax bannaan oo go'aanadeeda gaadha sidoo kale haddaan visionka u soo dego hay'adan waxa weeye hay'adu waxa la doonayaa inay noqoto hay'ad qarameed oo dunida laga aqoonsanayo waayo waxbay soo saartaa outputkay soo saartaa waxa ka mid ah standardska heertayeediyo waxaanu dhaahno oo dee shay kasta lagu eegayo sidoo kale waxay soo saartaa reports ama results nataij marka inta badan waa visionkeedu waxa weeye waa hay'ad dal kale haddii alaabteenu u gudbayso aanu shahaado raacino ama report result aan raacino inay dalkaasi aqoonsado marka wata missionkayaga ama himiladayadna waxa weeye inaanu bixino adeegyo la isku hadlayn karo dhinaca amniga dhinaca tayada waxay leedahay structure-ka saddex waxay leedahay 7 guddiyo bay leedahay oo saddex ka mid yihiin kuwa operational-ka ah ee hawl maalmeedka maalin walba qabta iyo 7 waaxood oo saddex ka mid yihiin kuwa technical-ka ah waxa ka mid ah hay'adda standardada dejisa waaxda standardada dejisa waaxda cabiraadaha iyo waaxda baadhista tayada commissionerada sida arkaysaan saddex ka mid ah madaxweynaha toos uga yimaadaan afar ka midana afar wasaaradood ayaa soo saara because taasi waxay ku tusaysaa waxaanu soo saaraynaa waa wax wasaarado kala saameynaya marka dad baan u dhex jooga hay'adda oo waa afar commissioner waxa laga yaabaa go'aanada aan soo saarno oo imika kala wasaaradda ganacsiga maalintii dhow markay soo saaraysay barnaamijkii imika uu Xamse ka sheekeynayay ahaa in laga dhigo 3,000 ppm standardka shidaalka tayadiisa waxa weeye anaga standardka u soo gudbinay marka trade-ka saasaan isu saameynayna caafimaadka dawooyinkii baan baaraynaa oo iyagana la iska saameynaya agriculture-ka khudaaraha iyo waxaan qasacadaysan fruitiska la iska saameynaya xoolaha laftigooda productskan xoolaha kiimada ayaan iska saameynaa this is the most important thing tan waa ta ugu muhiimsan mandate-ka iyaga ama responsibility-ga iyaga waxa weeye standardaan soo saarnaa oo biriba kale waxa soo bixi doona standard ayaan filayaa standardadaasi waxa la yiraahdaa national standards heertayadyada qaranka anagu workable bay noqdaan way shaqeeyaan standardskan soo saarna waayo wax yaalaan berbera products kasta shaybaadhka marka la marinayo waa lagu eegaa hadday baaskareeyaan we allow hadday baaskareyn waayaana waa la miisaameeyo mararka qaar baa export lagu sameeyaa dib loo celiyaa ama lagu gubaa halka meel disposal lagu sameeyaa sidoo kale waxaan ilaa hadda waxa la soo saaray kulli ilaa 140 standard oo qaar ka mid sida korontada ay khuseeyaan ama alaabada korontada waxay intii hore u badnaayeen cuntada dawada cosmeticska firileyda waxaas u badnaayeen sidoo kale shaqada labaad ee aan mandate-ka iyaga waxa ka mid ah hubinta tayada iyo baadhista waxa weeye halka ashyaada dibadda waan ku baadhnaa entry points-ka dekadaha sida oo kale waxaan sameynaa dalka gudihiisana shay ma oran karno 100% shay xun baa soo gala mararka qaar waxaan imika ogaanay waqtiyada dambe dhibaatada ugu badan waxay ka dhacdaa dalka gudihiisa storage-ka ka dhacdaa oo waxa weeye biyihii bay soo qaadayaan meel jingada baa la dhigayaa way ku dhaxumaanaya marka taa laftigeeda waxaan ku sameynaa kormeer iyo ilaalo gaara oo waanu dukaan bakhaarada waaweyn ayaanu baadhnaa kulli meelaha hoose dawladaha hoose ayaa iska leh sidoo kale waxaan sameynaa shay baadhis kani waxa weeye waa qodob aad u muhiim ah waxaanu baadhnaa cuntooyinka dawada la baadhaa cosmeticska la baadhaa imika calafka xoolaha ayaanu bari dhaweyd beeraleyda aanu soo eegaynay ilaa qolijeed la gaadhay marka waxa weeye waana shaqo aad u culus ilaa 3 shay baadh baa jira kii calafka xoolaha kulli sanadkan 26 kana ka electricalka
iyo dhismaha iyo kuwaana weel banka insha Allah naga caawinaya oo waxay ku jiraan pipeline-ka accreditation baanu bixinaa accreditation wax kale maaha waa mid soo saaraysa awoodda hay'adda oo ah in laababkan private-ka ee dalka iyaga laftigooda la sii aqoonsado intaanay aqoonsi dibadeed dalban marka accreditation marka waxa la yiraahdaa waa sidoodaba shaybaadhada marka ay aqoonsi dalbanayaan oo ay regionalka ka dalbanayaan waxa lagu xidhaa nationalka marka hay'addu waxay bixisaa inay laababka aqoonsato oo ay shahaado siiso oo ay check garayso sidoo kale certification baanu sameynaa shahaado sumadaan bixinaa iminka waxa laga yaabaa company-ga saxaxo qof kasta uu hor yaala biyihiisu calaamadda yani baa ku dhex taala calaamadda yani SQCC sumadii tayada ee hay'adda dhowrista tayada ayaa ku dhex taala oo dee waqti dheer dabadeed oo laba hawlgal aanu ka soo sameynay mar systemka guud ee warshada ayaanu eegnay shaqaalaheedaanu eegnay nidaamkay wax soo iibsataanu eegnay nidaam procedureska ay wax ku soo saarto sida wax u shaybaadho markii dambana muunada intaanu ka qaadnay ayaan berberageynay markaasaa testing lagu sameeyey oo la eegay macaadinta ku jirta microbiologically inay free yihiin contaminationka waxaasoo dhan aanu eegnay markaa taana waanu ka saacidnaa sumadda tayada waanu siinaa meteorology waa kelmad iyaduna imika ku cusub waxa weeye cabiraadaha ama qiyaasaha waxa weeye tayadiyo kaliya lama eegaye qiyaastuna waa muhiim in la sugo oo waxa weeye transactions badan baa dadka ka kala dhex dhacaya cabashada ugu yaree xagga dee koronto energy-ga inooga timaadee waxa weeye qofkii dadkii waxay ka cabanayaan waxay odhanayaan saacadeed wixii la rabay wax ka badan bay qoraysaa oo markaa taa laftigeeda hay'addu rool bay ku leedahay waxaanu samaynay iminka ilaa 87 kaalmood ayaanu jeegaraynay oo aanu soo qaadnay wax loo yaqaano tangi proofera oo aanu ku hubinay annagoo eegayna habraaca caalamiga loo yaqaano International Organization for Legal Meteorology oo IML oo markaa qaarna way khaldamaan oo waxaan ku nidhaa dib ha loo saxo oo farsamo yaqaankii baa loo yeedhaa wuxuu ku sameeyaa calibration kuwa kalena shahaado ayaanu siinaa oo waxaa ka mid ah home petroleum kale ilaa 24 kaalmood oo magaalada Hargeysa dhexdeeda aanu siinay certificateski marka waxaa loo odhan karaa 0.5 plus or minus ayaa inta badan laga ogolaadaa marka waxaanu sameynay trade promotion ganacsiga ayaanu dee dhiirigelinaa sidaan ganacsiga u dhiirigelinaynaa iminka qofka halkaa sumadda inay ku dhejistay iyo ka aan ku dhejisanay way kala xuquuq duwanaanayaan inta halka joogtaana dee waxa muhiim ah aan dee ku baraarujinayaa inay eegaan biyaha sumadda tayada ee hay'adda dhowrista sitaa inay ka midnaa badan yihiin kuwa kale because kuwan aniga damaanadoodii qaadnay annaga ayaa ka hay'adahan damaanadoodii qaadnay kolley shirweynaa dhici doona waxaan oo dhan waan ku baraarujin doonaa awareness-ka inaanu dadka ku baraarujinno sidoo kale waxaanu samaynaa public awareness dadka ayaanu gaadhsiinaa fariimaha oo waxa weeye mararka qaar xaalada dunida ka soo kordhaan oo haddii WHO WFP wax khaladaad ay ka dhacaan oo dee mararka qaar waxaanu markaa dadka waanu la wadaagnaa heshiisyaanu gallaa kan waa milestone-kii ilaa 25 aanu gaadhnay 20kii xarunta guud ee hay'adda ayaa la dhisay strategic plan-ka la sameeyey shaybaadhka qarankee berbera ku yaala ayaa la sameeyey almost 3 million ay ku baxeen 25 kii calafka xoolaha ayaa iminka dhammaad ku dhow marka koobaad hay'adda dhowrista waniga inii sheego 140 heertayeed ayay samaysay qaar bildi ka yihiin qaar ay khuseeyaan korontada oo kuwan u dambeeya cuntadii oo sababta keentayna waxay ahayd iskamaanaan dhaqaaqin daraasad baa la sameeyey war waxa ugu badan ee aynu isticmaalaa waa maxay markaasaan idhi bal waxa lagu dhaashto iyo waxa la quuto iyo waxa la liqo saddexdaa eega marka iminkaanu xaggii waxaanaanu ogaanay dekada berbera maraanu tagnay boqolkiiba dalka 60 alaabta soo gasha waxay u badan tahay alaabaha dhismaha iyo korontada u badan oo iyo maryaha waxaan la qodan la cunin marka kolley iyagana waan ku soo soconaa ka standard waxa la yiraahdaa waa document muujinaya shuruudaha iyo qiyaasaha product looga baahan yahay si uu meet gareeyo ama loo isticmaalo ama loo quuto marka waxa weeye areooyinkaas ayaanu awoodda saaraynay 4 sano u dambeysay heertayadii khuseeya cuntada iyo agriculture-ka dhismaha chemicalska electricalka qaar shidaaladu waa ku jiraan LPG-gii baa ku jira LNG-gii baa ku jira naftadii baa ku jirta petrolkii baa ku jira iyagana waanu develop garayn processkaas u maraa waxa weeye because mar haddaanu ilaa 40 shir wax ka badan aanu u diyaarinay guddiyo farsamo nidaamkaasaan markaan heertiyadada diyaarinay inaanu maraa marka koobaad baahidaa la doortaa baahidu waxay ka iman kartaa wasaarad waxay ka iman kartaa ganacsato dadkay ka iman kartaa jaamacadahay ka iman kartaa dabadeed markaasaan waxaan u samaynaa guddi farsamo wax loo yaqaan guddidaa farsamo waa daneeyayaasha standardkaasi khuseeyo anagu gacanta kuma qorro waan iska ilaalina
waayo anagu waxaanu leenahay ka hay'ad dhowris ahaan meesha ayaanu diyaarinaa platformka ay ku diyaarinayaan ayaanu u ogolaanaa xogayna waanu samaynaa dadkaas uu standardku ka dhaxeeyo ee hadhowna uu saameynayo ayuunbaa diyaariya oo guddiyada farsamada ka keennaa dabeed dhugmatiyadaan u diyaarinaa finally marka dhugmadka la sameeyo madaxda sare 7 qof ee guddidu way approve gareeyaan ama way dhamaystiraan waxa weeye technical committee waa shaqadoodii inay daraaf gareeyaan standardka inay eegaan inay wax ka bedelaan inay ku heshiiyaan mararka qaar baa ay isku qabsan karaan oo waxa dhicisay barigii shidaalka la sameeyay ragii joogay waqtiga standardkan petroolka BBM kaas la isku haystay ma keeni karno lacag baa kor u kacaysa diqowas hawadaaba dhacaya adoo aakhirka way ku heshiinayaan wuxuu noqonayaa wax workable dugman la isticmaali karo oo practically la apply gareyn karayo stakeholdersku sidana u yimaadaan waxay ka yimaadaan consumerska waxay ka iman karaan jaamacadaha waxay ka iman karaan non-governmental organization industriyada ka iman karaan sidoodana 3 ilaa 15 bay noqon karaan inta u dhaxaysa waxa weeye waa waraaqdii iminka kala 7 heertayeed ee maanta gudoomiyuhu sheegayay waa markii aanu invite gareynaynay dadkii noo diyaarinayay waad arkaysaan wasaaradda macdanta Somaliland Energy Somaliland Electricity Association jaamacadda Hargeysa dadkii sidaan u dalbaynay marka halkaas iyo kala qolada Sunpower ayaa naloo tilmaamay oo iyagu kamid ah Cabdirashiid waaba fadhiya engineer Cabdirashiid ragii ka qayb qaatay standardska diyaarintooda sidaasaan saddexdaa weyn baa marka la diyaarinayo standardku noqon kara standard hore hatta de horu diyaarsan yahay oo international standards baa jira ISO standardkii waxa jira regional standards waxaanu sameynaa markaa mid sidiisa loo qaataa waa la wada qaataa oo waxba laga ma bedelo ka wax la yiraahdo adoption midna minor baan ku sameynaa waxbaan ku bedelaa oo dalkeena ayaynu leekaysiinaa oo haddii kaba soo qaad arrin diimeediyo waxyaabaad aan cimiladeena ka hor imanayo waan bedelaada guddida takhasuskaaba iyagu wax ka bedelaya midna waa adaa samaysanaya oo iminka standardada qaar baad samaysanaysaa iminka Ethiopia kala standardka ay iyadu samaysato waxa kamid ah daafida iyadoo kaliya dunida laga isticmaalaa tacab badan baa standardkaas oo kala gala inagoo kala waxa jiri kara products aynu gaar u yeelan karno I don't know markaas uu maleeyay muqmada ugu soo dhow baan filaya muqmada in hinsta iyo subagayo waa standardski aan diyaarinay qaar kamida meesha ay wada deeqi weydo waa arkaysaan khudradaha ay u badeen shamitadii baa kamida guideline-adii inuu khaladaadka yareeyo marka businesska laga hadlayo oo ciladaha ku iman lahaa wuxuu kala caawiyaa economiga oo haddii standardkaagu fiican yahay oo de imika tan qoladan aanu siinay Ethiopia kala way geyn karaan because heshiis baa naga dhaxeeya hay'adda dhowrista tayada Ethiopia oo waxaan sameynaa wax loo yaqaan mutual agreement oo standardadii baanu harmonize gareynay qaar kamid ah guddiyaan halka ka diray 2021 biyaha kala waa kamid waan isla midaynay marka maxay ku khasbay wixii aan isla midaynay in ay iyaga geli karaan oo xagga taariifada iyo hawlahaas ay ka hadli karaan laakiin dhinaca kale anaga hadee u soo hubinay iyaguna sidaas leeg bay soo hubiyeen dhowr iyo 10 this standardska imika ongoingka oo maanta gudoomiyuhu noo sheegayay de guddidii markii dhaweed aan magacawnay marka final stage-kii bay taagan yihiin faafin rasmi ah oo in lagu sameeyo ayay u baahan yihiin recommendation haddaba haddaan xoogaa tala bixina aan sameeyo waxa weeye kolley Somaliland hay'adaha kala duwani qolo kastaaba waxbay diyaarinaysaa laakiin ujeedadu waa waxa la jeedisiyo qaadis waa sila guriga geeynu waxa yaran macnaan lahayd in de la soo yaro yimaado oo hal dugman oo workable oo practically aynu de soo wada saaro waana fududahay waanaynu ka wada shaqeyn doonaa insha Allah because waxa weeye waxaynu yareyn karnaa confusionka ku dhacaya consumerska wastage-ka resourceska lumaya duplication-ka sidoo kale national standard la soo saaro dadka stakeholderska laga wada qayb geliyo markaynu inagu standard sameynayno awareness la sameeyo hal qodob baan markaa insha Allah aan ku gabagabeynayo waa iska dhan yahay presentation-ku waxa weeye Somaliland hay'adda dhowrista tayadu imika awoodda focuska waxay saartaa cuntada dawada iyo cosmeticska waxa laasiman kulay ganacsatadii qalabka electroniga ama electricalka soo dejinaysa way joogan dhismuhu waa laga yaabaa inay joogan waxa dhaci doonta insha Allah iyagana in la checkarayn doono oo la eegi doono oo standard waayo khaladaad badan baa ka yimid laga yaabaa suuqeena waa heenba waxa la leeyahay uu sahaydaba dabka inuu ka mid yahay baa laga yaabaa 500,000 sidoo inaan ii sheegay alxayaad oo kale qolada MRI-ga mishiinka yaalay MRI-ga loo yaqaano oo ilaa $500,000 la soo sameeyay isagana waxa sahayda waa electric shock marka waxa weeye waa muhiim
inaynu dee la jeegareeyo annaguna insha allah waanu jeegaraynayna laabkiina waa imanaya waxaa intaa ka horeysana insha allah waxaynu midayn doonaa istaandaradeena hay-adda dhowristu keliya iyadu istaandarka ma soo saari kartay annagu istaandarada haddii industry meelay takhasus ku tahay istaandar ka soo saarto nidaamka un baanu marinaynaa waanu koodhgaraynaynaa faafin rasmiya baa lagu samayn karaa marka insha allah intaasun baa kusoo gebagabaynaya mahadsantiin